waxaatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira Axmed Ibrahim Ismaaciil. Axmed ugu horreysay maqashaa? ها شو ناكسن wareen bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa ardayda Soomaaliyeed marka guud ahaan ka qalin jabiyay sanadkan jaamacadaha ku yaala dalka Itoobiya. bismillahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa aad iyo aad baan ku salaamayaa waxaan ku salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka labaad halkan waxaa ka qalin jabiyay maanta arday aad fara badan oo Soomaaliyeed oo isugu jira hablo iyo wiilal ardayda tirada waxay gaaraysaa aad u qiyaastii waxay ka badan tahay 300 sida markaan uu xogaal ka wahay oo ka qeybiyay jaamacadaha kala duwan ee dalka Itoobiya gaar ahaan Addis-Ababa inta ardayda ka qeybiyay ayaa 300 ku dhaaf waa tahay markaynu ku soo noqono idinka jaaliyad ardayda ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ama Khaatumo waxaad qabsateen munaasabad gaar ah oo isugu timaadeen ardaydiina ka soo jeeday deegaanadaasi bal faahfaahin naga sii munaasabadaas iyo sida ay u dhacday aad u mahadsantahay fadhiis runtii waxaan sanadkan ka dhigay magaalada dalka Itoobiya caasimada dalka Itoobiya waxa ka dhacay xaflado fara badan oo runtii aniga ay xafladda ugu diray xafladda qabsanay ardayda Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan xafladaas waxay xafladda ku dhahoobeen oo ku midoobeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka tirsan magaalada Addis-Ababa jaamacadaha ku yaala runtii waxay ahayd maalin taariikhi oo aad u weyn haddaan soo noqdo dhanka jaaliyadda Khaatumo waxaa jirta xaflad aad iyo aad loo soo maamusay oo ka dhacday magaalada Addis-Ababa gaar ahaan hotel la yiraahdo Landela hotelkaas waxaa si qurux badan ayaa loo sharaxay dhalinyaro ayaa ka shaqeysay xirfad u leh haweenka xafladaha runtii halkaas ayaa waalidiinta intii joogtay ka soo gaari kartay ardayda dhalinyarada qalin jabisay intii joogtay halkan la joogtay aad iyo aad ugu tahniyadeeyeen xaflad qurux badan baa ka dhacday loo isku arkay waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socda maamulka Khaatumo oo kamid yahay Cali Ciise Cabdi oo isaguna maalinta ka jeediyey khudbad xasaasi ah dhalinyarada halkan lagu soo jeediyey waa tahay Cali Ciise oo inoo ognahay inuu yahay aqoon-yahan geeska Afrikan caanka ah waxyaabaha uu ardayda qalin jabisay kula dardaarmay maxaa kamid ah waxaa kamid ahaa inay waxbarashada sii wataan in ayna maanta waxbarashadoodii halkaa ku ekayn ay qalin-qorasho haysan qalin ahayn wuxuu u tilmaamay run ahaantii taariikho fara badan uga sheekeeyey oo dhalinyarada wuxuu u sheegay inay taariikhdii hore ee soo martay dalka iyo ummadda Soomaaliyeed wax ka barta wuxuu kale u sheegay dhalinyarada in ay himigooda kor u qaadaan maanta wuxuu arkay dhalinyaradi wadamada horumaray maanta dhalinyarada halka ay gaarsiiyeen kaalintoodan dhalinyarada maanta usoo kacaysa waddanka ay yihiin annaga waana waxaan kamid ahaa ardayda ka qalinjibisay runtii waxaa wacyigelin iyo hanuun aad iyo aad wanaagsan oo ah kusaabsan dalka iyo dadka ummadda Soomaaliyeed labada waa tahay ugu dambeyntii adiga Axmed bal ka waran dareenkaagu maalintaas sidee oo ayuu ahaa wuxuu kaga bedelnaa maalmihii kala duwanaa ee aad ku soo jirtay waxbarashada runtii aad garan kartaa qof qalin jabiyey oo qaatay bixihiisii ugu horreeyey dareenka iyo shuruurta maalinta ka muuqatay gaar ahaaneed isagoo gaara marka aad iyo aad ayaa dareenkii u sarreeyey kadib weliba markii dadka aqoon-yahanada meesha ka hadlay kow ka ahaa Cali Ciise Cabdi ay ka hadleen halkaa kuna dheeraadeen muhiimadda ay waxbarashadu leedahay aadna ugu booriyay dhalinyarada Soomaaliyeed oo gaar ahaan dhalinyarada reer Khaatumo inay waxbarashada waajibiyaan oo bartaan oo waxbarashada ku dadaalaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa niyadeeduna aad iyo aad bishucuurteeda markaasnayd Axmed